والله aad baan idin jeclahay qalbigaan idinka jeclahay dhammaantiin meel kasta joogtaan intii xanuunsan ilaahay ha caafiyo intii caafimaad qabtay ilaahay ha ugu wado aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin noolaada ballanteenu waa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي هل كان وبرت يوتيوب بقح ميديا هدي اي تهي بوقشة دي ugu horeysay aad soo booqato barta YouTube bagax media fadlan adigoo aad u mahadsan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee mar waliba haleela wararka iyo warbixinada gaarka ah ee aan idin soo gudbino sida oo kale daawade muuqaalka aan idin soo gudbinayno hadii uu noqdo mid ku raali geliye isla markaana aad ka hesho asxaabtaada u sii share garaysi sidaada oo kale ay kaga bogtaan isla markaana muuqaalada xiisaha badan ee uu idin soo gudbinayo barta YouTube ee bagax media ay kaga helaan tiraahda ku mashquulka qeyrka qorshe dhaama baa jire inta qof bilaadana magaciisa ku deene maalin baa dhagax dhigaysaan bari dhig maanta dhig saatan badhig kuri baad dhisan lahayd inta qof bilaadana magaciisa ku mashquulsantiin inta xumaanta u isticmaashaa magaca qofka bilaadanka qof kasta bahaada aniga ahaado qof kala ahaado xumaanta u isticmaasha ee qofkii inta magaciisa ku qoratay haddana xumaan u isticmaalaysa waxaan leeyahay walaal maalinaan maanta hayn baa dambayse ilaahay ka cabso iska daa oo kulliba magaca qofka samaysatay wax khayr la ku isticmaalno aradamay maqashaa wad fahantaan u malaynaya hagaag daawade haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa arrimo xasaasi ah oo ku saabsan mar kale fanaanada Ugbaad Aragsan iyo Qamar Suugaani fanaanada ayaa toddobaadkan mar kale leef ay soo gashay waxa ay kaga hadashay arrimo dhowr ah oo ku saabsan guurkeeda iyo sida oo kale guurkii sayigeeda hore ee Qamar Suugaani iyadoo meelo dhowr ah oo xasaasi ahna taabatay haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa daawada maxay ka hadashay fanaanada Ugbaad Aragsan sida oo kale maxay ka tiri arintii guurkeedii iyo sayigeedii hore ee Qamar Suugaani waxay ka hadashay arrimo kale oo dhowr ah toddobaadyadii aynu ka soo gudubnay daawada baraha bulshada waxa qabsada muuqaalo dhowr ah oo siyaabo badan oo kala duwan looga hadlayo isla markaana ku saabsan kala aragti duwanaanshaha Qamar Suugaani iyo sida oo kale fanaanada Ugbaad Aragsan maxaa sababay in ay kala tagaan isla markaana sida oo kale maalin qura mid waliba uu dhigto xaflad meher ayay ahayd toddobaadkii hore muuqaalada qabsaday baraha bulshada iyo sida oo kale Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan ka hadalkooda sheekadii hore sheekaba soo dhaaftay mar kale fanaanada Ugbaad Aragsan oo leef toos ah soo gashay isla markaana ka soo gashay barteeda gaarka ah ee Facebook ayaa waxay ka hadashay arrimo dhowr ah oo ku saabsan Qamar Suugaani iyo sida oo kale xiriirka cusub ama nolosha cusub oo ay markaa dhisatay fanaanada ayaana waxa ay ugu horeyn ka hadashay facebookyo dhowr ah oo been abuur ah isla markaana la sameystay laguna matalayo fanaanada Ugbaad Aragsan oo sida oo kale la soo dhigayay muuqaalo aan u wanaagsaneyn fanaanada sharafteeda iyo sida oo kale sumcadeeda fanaanada ayaa sida oo kale dadka sameystay facebookaasi waxay u dirtay dardaaran gooni ah ugu horeyn waxa aynu ku hormaraynaa anagoo muuqaalkii leefka ahaa ay soo gashay oo aad u dheeraa aan soo wada qaadan karin dhammaantii waxaynu u kala qaadi doonaa ilaa iyo dhowr kilib oo kala duwan waxaanu ku hormari doonaa muuqaalka ama kilibka ay kaga hadlayso facebookyada aan ahayn iyo sida oo kale dhibaatada ay ku qabto dadka sida gaarka ah u sameysanayo facebooka lagu matalayo magaceeda tiraahda ku mashquulka qeyrka qorshe dhaama baa jire inta qof bilaadana magaciisa ku deene maalin baa dhagax dhigaysaan bari dhig maanta dhig saatan badhig kuri baad dhisan lahayd inta qof bilaadana magaciisa ku mashquulsantiin inta xumaanta u isticmaashaa magaca qofka bilaadanka qof kasta bahaada aniga ahaado qof kala ahaado xumaanta u isticmaasha
ee qofkii inta magaciisa ku qoratay haddana xumaan u isticmaalaysaa waxaan leeyahay walaal maalinaan maanta hayn baa dambayse ilaahay ka cabso iska daa oo kulliba magacii qofka samaysatay wax khayr la ku isticmaal huno aradamay maqashaa wad fahantaan u malaynaya hagaag daawade marka laga tago arrinka facebooka oo ay ka hadashay fanaanada Ugbaad Aragsan isla markaana ay sheegtay in qaatu billaahi ay ka taagan tahay dad samaysanaya facebookeeda si aan wanaagsaneyn isla markaana uu isticmaalayo taageeraha ama asxaabta ay leedahay waxay ugu baaqday in facebookeeda ay garan karaan isla markaana follow aad u fara badan uu leeyahay facebookyada been abuurka ahna uu ka follow badan yahay marka laga taga arrinkaas maxaa kale ay kaga hadashay leefkii oo ay soo gashay fanaanada Ugbaad Aragsan iyadoo sidaa oo kale tilmaamtay arrimo dhowr ah oo ku saabsan nolosha ama guriga iyo guurka cusub oo ay dhisatay waxayna sheegtay in aad ay ugu faraxsan tahay xilligan nolosha ay ku jirto waxay sidaa oo kale si dadban ay kaga hadashay nolosha siyigeedii hore ee Qamar Suugaani oo haatan dhigiisa guur cusub iyo nolol cusub dhistay maadaama ay kala tageen kadib waxa ayna si sarbeeb ah uga hadashay arrintaas iyada oo u hambalyeysay fanaanka Qamar Suugaani mar kale aan wada daawano qaybta xigta ee muuqaalka fanaanada Ugbaad Aragsan iyo arrimaha dhowrka ah oo ay kaga hadashay daawade muna qalbiyey walaalaad baan ku salaamayaa igada qabiil way dabar jare igada qabiil way duleeyay igada qabiil qaran baa ideeqe igada dhiigtaatayo kala daadsanaan igada diifiyo darxum waa halkay degtee nagada qabiil qaran baana deeqe nagada ولي بالفيسبوك أصحاب تكتشفت أصحاب كشرف بدني ما شفتوا ما شاء الله ما شاء الله نول هذا ساركين أحمد عالن عاتق سودو وشيت كيجي Ring. ورنا ذا رليف كان كنت نايم كمان نقع عرشيننا قباد أحمد شيد كي يقولنا aad baan idin jecelahay wallahi da noolaada huno noolaadana sabaatihiine casiisadayda una qaali miyanon ka tirila haddii aanadii iman miyan aayelila adooni garab ankaaga weeyaan ugubkan ku tagni iyo howlayska
iftiinsha noloshaba iftiinsha noloshaba amaal daahir soo dhawo walaal qaali warheedha idinkaan idin weydiiyey arrintaa dadka intay Facebook samaystaan qof magacii welibana ka soo caytamaya ma aflagaadooyina ma waxyaabo khaladaad oon fiicnanaya maxaa leedihiin asxaabtayda bal wax ka dhaha aawi saarakiin axmed maxamed muuna mahadsanid walaalo walaalkii siciid gufaaco mahadsanid walaalo hagaag daawade halkan waa barta YouTube ee Bagax Media waa baahiyaha barnaamijyaadka la xiriira arrimaha bulshada waad ku mahadsan tahay daawade booqashada aadna soo booqatay iyo sida oo kale daawashada aad daawatay muuqaalkan alaaba barta YouTube ee Bagax Media wuxuu idin soo gudbiyaa barnaamijyaad aad u xiiso badan iyo sida oo kale dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dhaca anagoo alaaba diiradda saarna arrimaha ku saabsan barnaamijyaadka arrimaha bulshada haddii ay tahay markaagii kugu horeysay ee aad soo booqato bartan YouTube ee Bagax Media adigoo aad u mahadsan daawade fadlan subscribe noo saar gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee haleela wararka iyo warbixinada gaarka ah ee alaabaan idin soo gudbino sida oo kale muuqaalada aan kuu soo gudbinayna haddii ay noqdaan kuwo ku xiiso geliya adigoo aad u mahadsan asxaabtaada u sii sheer garay si sidaada oo kale ay kaga bogtaan ayaguna waad ku mahadsan tahay daawade booqashada aadna soo booqatay